يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. درسيga ku xiga oo ah darsigii 17aad ama 16aad kii 16aad ma uu yahay qofkii isagu garashadiisu ay luntay oo uu gaaray xad kharaf ah oo asaasaqay gabow daraadi qofkaasi soom lagama rabo maadaama aqligiisi uu tagay takaaliiftiina waa ka dhacday qalana lagama rabo maba awoodo soonna lagama rabo fidina laga bixin maayo maadaama ay caqliba joogin oo qofkii asaasaqay oo caqligiisa u maqan yahay haddii uu waqtiyada qaarkoodna wax kala garanayo waqtiyada qaarkoodna aan waxba kala garanaynin waxay leeyihiin culimmadu xilliga uu wax garanayana waa laga rabaa xukunkii axkaamtii soomku waa ku soconaysa hadduu soomin kariyo hadduu afuri karo waa la eegaya xilligan uu caadiga aanu ahayn waxba kala garanayn waxba lagama rabo sida awgeed waxaa iska fiican qofka mar hadduu waqtiyo badanna ama saacado badanna wax garanaya saacana waxba garanaynin in maalintii raashin laga bixiyo ayaa iska fiican oo markaa ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado oo qofku markaa ajar badanna uu ka helayo insha allahu tacaala qofka isagu sababta u afuray ay tahay sabab muuqata waa bukaa wuu xanuunsanayaa qofkii arka wuu garanayaa qofkan inuu xanuunsanayo xanuun ka muuqdo way u bannaan tahay dadka hortooda in wax ku cuno wax ku cabo haddii uu qof tabcaan oo liita u yahay xanuunsanayo qofkii arkaaba uu garanayo qofkani inuu afuraa inay u bannaan tahay oo dee xanuunka jirkiisa ka muuqanaya laakiin qofku sababta u afuray ay tahay sabab qarsoon sida qofkii dumar ahayd ee caadada wadatay oo kale sida habbooni waxa weeye maadaama sababkay u afurtay iyada ay nafteeda isloog yihiin inay hadday xilliga ay afuran tahay hoos ahaaneed iyo meel astura oo iyada aan cidi arkaynin inay wax ku cunto ayaa fiican si aan diinteeda iyo sharafteeda loo tuhmaysan oo aan loo malaynin qof aan xuduudda ilaahay tixgelinaynin cibaadadana aanay xil badan ku lahayn si aan loogu malaynin oo fahamkaas khaldan aan dadka uga dhicin ayaa la rabaa qofkii isagu siyaam soomanaa musaafirna ahaa safar ka soo galay oo magaaladiisii yimid soona afurnaa culimada qaar waxay leeyihiin waxaa fiican inuu iska afhaysto zamanka iyo bisha xurmadeeda isagoo tixgelinaya inta cadceedu ka dhacayso qaarna waxay leeyihiin maadaama uu afurkiisu ahaa afur sharcigu banneeyey oo ruksad ilaahay siiyey ay ahayd waa bannaan tahay inuu iska afuro oo maxaanku waxba aanu afhaysanin ayay leeyihiin marka qofkii isagu dhinta maalin rabadaan oo soontii lagu jiro qofkaasi isaga iyo awliyadiisa wax laga rabaa ma jirto bisha inta ka dhiman hebel waa dhintay maanta oo bishu ay tahay 17 baa la yidhi maalan hadduu dhintay 13 baa bishii ka haray haddii la yidhaahdo 30 bay ku dhammaan ama 12 baa ka haray haddii bishu ay ku dhammaato 29 la odhan maayo hebel haddii uu nool yahay soonta wuu laasan lahaa ama uu dhammaysan lahaa ee ha laga soomo intii bisha ka dhinayd waayo xilligaa isagu takliifadeeda iyo waajibkeeda iyo xilkaasi maba uu gaarinoo waa ka horreeyo waa dhintay waxaa uun dib loo eegayaa intii uu soomanaa iyo intii aanu soomin unbaa dib loo eegaya waynu soo sheegnay haddii uu maalmo xanuunsanayey oo aanu soomanayn oo markaa uu dhintay isagoon caafimaadinba qadana lagama rabo oo maxaanku idhahdaa dee waaba dhintay qofkii fidina laga bixin maayo lagana soomi maayo waayo dee jaanis uu ku afuro jaanis uu ku soomo soontii ku soo qalleeyo maba helina xanuunkii markiiba waa u dhintay qofka dumara iyadu xaa'idada ah diinta islaamku aad bay u tixgelisay qofka dumara cibaadaadkeeda ama xaa'id ha noqoto ama nufasaa ha noqdaan dumarku bisha ramadaan islaamku aad buu u tixgeliyey axkaam u gaarana shareecadu way u dhigtay gabadhu ma isticmaali kartaa iyaduna waa qodobadan rabin taabano
kaniinadan xaydka iyo caadada dib u dhiga iyadoo markaa leh soonta si aanay iiga jabin bisha ramadaan inaan kaniin liqo caadada maalma dib iga dhigaya oo markaa aan soontaydi dadka si caadi ula soomo. gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhiiggeeda dhabar furanka ay soconayay soonkeedu muxuu noqonaya? gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha naaska jaqsiinaysay ramadaanta xukunkeedu muxuu noqonaya? allah subxaanahu watacaala gabdhaha nabiyullaahi aadam uu dhalay ee ummadda hooyooyinkood ah, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qoray axwaal iyaga u munaasib ah iyo xaalado iyaga u habboon noloshooda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u qorsheeyey iyo hooyanimadooda, taasoo alle subxaanahu watacaala uu sharaf iyaga ku sharfay alla uga dhigay ummadda tarantoodii maadaama ay yihiin. sidaa awgeed xaaladaha qaarkood oo gabadhii ku keenaya dacfi u keenaya sida inay umushay ama xayday oo kale, islaamku waa ka fudaydiyey takaaliifta sharciga wax ka mid ah, waana ka wadaayey sida salaadii oo kale. oo gabadhii hadda umusha ahayd oo 40 cisho aan daahirsan, 40kaa cisho soon lagaama rabaa layidhi. salaadu maalintii waa 17 salaadood. 17 salaadood haddii lagu dhufto bishii waa 510 salaadood. bil keliya haddii gabadha laga dhaafo 510 salaadood baa gabadha ilaahay ka saamaxay subxaanahu watacaala. sidaa awgeed gabadhii soontii hadday xayd hesho ama ay umusho, intaa ay fadhido oo dhiiggaasi ay wadato, ilaahay soonka ma rabo, waa ka saamaxay. salaadiina way soo qadaynaysaa, soontiina way soo qadaynaysaa. salaad ilaahay kama rabo, soontii wuu ka saamaxay. soontiina afuradeedii loo baneeyey inay afurto way soo qalaynaysaa. maxaan ku idhaahdaa gabadhii xaydka wadatay ama umusha ahayd. caaisha radi allahu tacaala canha waxay odhan jirtay, kaana yusiibunaa dalik, xaydku waa nagu dhici jiray, fanu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i siyaam. waxaana la amri jiray soonka inaanu soo qalayno, nalama amri jirin salaada inaanu soo qadayno. xadiiska imaam muslim soo saaray. gabadhu haddii marka ay soonto xaaladda ay macduurka tahay, soonkeedu ma ansaxaya. way iska xishooto, waxays tidhi iyadoo yar bay qaan gaadhay, haddaad soontid waxaa la odhanayaa gabadhii afurtid way qaan gaadhay, way xishootay, soonkeedu saxiix noqon maayo. xaydkaasaa soonkii fasahaadinaya, waana damka macruufka ah ee gabadhii ka imanaya. hadday gabadhii dareento dhiiggii xaydku inuu soo hayo oo calaamadihiisii intaa gumaarka ah ama intaa wareegga ah laga qabto, madaxu inuu xanuuno, qaarba si weeye u qabto, qaar xumadoodaan dumarka, madax xanuun ay dareento, laakiin wax bar dhiigoo ka soo dhacday aanay jirin, markii afurada la afuray ka bacdi iyadoo maqhribba aan tukan, biyihii markay cabto timirtii afka gelisay uu ka soo dhaco xilligaa dhiiggii ka yimaado, soonteedii waa saxiix maadaama xilliga afuradaba soo gaadhay. haddii sidoo kale cagsigeed waxaa ah iyadoo sooman afuradii wax yar ka hor intaan la adimin cadceeddii ay sii dhacayso ay dhiiggii uu ka yimaado, soonteedaasi waa fasahaadaysaa, wayna soo qadaynaysaa. haddii gabadhii dhiiggii uu ka go'o salaadii subax ka hor, habeenkiina soon waa in ay niyeysato, subaxii waagu markuu baryo silgaa fajir ku dhasho way qubaysanaysaa, soonteediina waa u saxiix, waa u jirtaa. waxaase laga rabaa inay dedejiso, qubayska ayaa fiican si ay salaada u gaadho. hadday gabadhu daahirsatona waa sidaa iyaduna xaalkeedu. ayib, qofkii isagu gabadhii markay daahirsatay kabacdi bay waxay aragtay wax yaroo carun ah ama calow ah oo ka yimid markay daahirsatay kabacdi, waxba laga soo qaadi maayo. carunka yara yimaada bacda tuhur. caaisha umu caatiya radi allahu tacaala canha alansaariya waxay leedahay, kunaa laa nacudu alkudrata wasufrata bacda tuhri shay-an. waxba kumaanan tirin jirin waxyaabaha gabadha ku yimaada ee carunka ka imanaya markay daahirsato kabacdi, waxba kamaanan soo qaadi jirin. dumarka qaar waxaa ka mid a isticmaalo kiniinno ay leeyihiin, waxaanu kaga hortegaynaa dhiigga dibdhigistiisaan rabnaa si rabadaantu aanay nooga jabin, ama hadday xaj ku jirto ay isticmaasho. arrintaasi dhakhaatiirtu markay eegeen caafimaad darro weyn bay sheegeen. waxay sheegeen in gabadhaasi dhiiggeeda khalkhal uu gelin karo dawadaas isticmaalayso,
oo markaa dhabar furan uu keeni karo. waxay sheegeen in qofku dareenkiisa wax uu ka bedeli karo, qof dabeecad kulul oo adag oo aan dulqaad lahayn uu qofku noqon karayo. sidaa awgeed waxaa fiican inay gabadhu raalliba ku noqoto sida ilaahay nolosheeda u qorsheeyey. markay xay tahayna ha iska afurto, marka ay daahirsatana ha soonto. sidaasaa u wanaagsan dimadeeda iyo maxaan ku yidhaha caafimaadkeedaba. laa darara walaa diraar. rasuulku wuxuu sal alay slm dhibna ma jiro, isdhibadina ma jirto. qawaacidda sharcigana waxaa ka mid a addararu yuzaal, waxa dhibta leh ee dararka ah waa la zuuliyaa. dumarkii saxaabiyaadkana dhaqankoodu sidaas ayuu ahaa xilligii salafka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin. darsigeena inta aan ku ekayno. astawdicukum allah wasalaamu calaykum. منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار. يا